رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. باب البر والصلة، أي بر الوالدين وصلة الأرحام. وكتاب كان بلوغ المرام من أدلة الأحكام بالحافظ بن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك يقول من أحب قفك جعل أن يبسط له في رزقه إن رزقه سلوفديه loo waasiciyo wa an yunsa'a lahu fii aharih cimrigiisana loo badiyo falyashil raximahu raximkiisa ha xidhiidhiyo, qaraabadiisa ha xidhiidhiyo. Waxyaabaha cimriga lagu siyaadiyo, cimriga wax kale dadku raadiyaan od aragtay oo hadda laysku dhibaa, ama daawooyin ha noqdaan, ama cunto layska yareeya ha noqdo, ama jiim la isticmaal ha noqdo, ama waxyaabo kale dadku aada u raadiyaan. laakiin waxa la hubo oo rasuulku sheegay sala allahu calayhi waali wasalam cimrigana lagu siyaadiyo waxaa ka mid a xiriirinta qaraabada in la xiriiriyo, waalidkana baari loo noqdo, risqiga ayaa lagu waasiciyaa, arsaaqda ilaahay baa kuu waasicinaya haddaad waalidkaaga baari noqoto. man axaba an yubsata lahu fii risqih, qofka jecel risqigiisa in loo waasiciyo, wa yunsa'a lahu fii aharih, cimrigana loo badiyo, qofkaasi ha sameeyo falyashil raximahu, raxiimkiisa ha xidhiidhiya qaraabada. rawaahu lbukhaariy. wa can jubayr, marka culimadu waxay dhahaan laba qaybood baa suuragal ahoo in looba siyaadiyo allah subxaanahu wa tacaala marka la qoraayo al-aajaal wal-acmaar, cimriga la qorayo horabaa waxaa la dhahayaa hadduu qofkani noqdo qof wanaagsan oo baari ah, qaraabada xidhiidhiya, malaa'igta waxaa amar lagu siin cimrigiisa intaa ka dhiga. haddii uu noqdo qof caaq ahoo qaraabada aan ku xunoon xidhiidhinina intaa ka dhiga. marka horaaba waxaa sii qoran baa la yidhi, labadaa xadood baa loo kala qoraya. marka culimada qaar waxay leeyihiin wax laga bedelayo waa malaa'igta waxaan ay iyagu qolaan oo acmaasha ay qorayaan lawxul maxfuudka waxa ku qoran isaga waxba laga bedeli maayo. waliyo kale culimada waxay leeyihiin siyaadadu ma aha in la siyaadiyo oo wax lagu daro, laakiin waa ilaahay oo barakeeyo cimriga, taasina waa suuragal. walidaalika waxaad arkaysaa qof da-yar oo dhalinyaro ah oo haddana wax badan ilaahay u barakeeyo, diintii yaqaano, wax walba yaqaano, yacni cimrigiisa intaa yarbaa ilaahayba u barakeeyo, oo intii ninka weyn ee da-da ahaa jirta ka badan buu alla u barakeynaya. marka sayd noqotaba ha noqoto cimriga waa lagu siyaadiyaa arrimaha aan sheegay. wacan jubayr bni muطcimin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam, rasuulku wuxuu yihi laa yadkhulu ljannata qaaicun, laa yadkhulu ma galo aljannata jannada qaacun ay qaaicu raximin, qof qaraabada gooyaay janno geli maayo. masaladana waaba masale adag wey, yacni qaaicu raxim oo bukhaari iyo muslim soo saaray, janno geli maayo. wa can ilmugiira bni shucbata radia allahu canh ana rasuula allahi sal lla ly slam qaala wuxuu yihi ina allaha eebbaweyne xarama calaykum, ilaahay wuxuu idinka xarimay cuquuqa alummuhaat, hooyooyinka inaad caaq ku noqotaan, hooyooyinka caaq inaad ku noqotaan waa laydinka xarimay. aabbaha naftiisa inaad caaq ku noqotaanna waa laydinka xarimay. wa wa'di lbanaat, gabdhaha inaad aastaanna waa laydinka xarimayoo carabtu waagii hore gabdhaha iyagoo nool bay aasi jireen. wa mancun wahaati, keen iyo mancin labadaana waa la xarimayoo mancu maa wajaba calayka la yidhahda, wixii kugu waajibay inaad diido waa xaaraan, sida sakadii iyo
xuquuqdii kale iyo waajibka ku ahayd mancigeeda iyaduna waa xaaraan. wahaati keen arkaan qaad baa la yidhaahdaa. kana waxaa weeyaan wax alla waxaad aragtay inaad un keen dhaad xalaal iyo xaaraam aadan u kala degin, iyadana waa la xarimay. wakariha lakum qiila waqaala, kanaa la yidhi iyo kanaa la yidhina waa laydinka xarimay. qiila waqaala waa laydinka xarimay. wakahrata su-aal, su-aasha tirada badan waa laydinka xarimay. su-aasha badan ama adduunya ha noqoto, qofku mar walba adduunya inuu ruuxa weydiinaa. xitaa waxaa la yidhi kahrata su-aal, su-aasha kale xitaa ama diinta ha noqoto, laakiin dadka qaar oon u baranaynin diinta inay bartaan oo siyaadsadaan tacanutan iyo madax adayg bay su-aasha u badinayaan, iyo ama ku dhibid ay ku dhibayaan qofka, ama maaragtay tacanut iyo madax adeegnimo, ama saas oo kale ay u badinayaan. wa idaacat almaal, xoolaha oo la dayacana waa la nahiyo oo xaaraam iyadana. xoolaha dayacoodu iyagana dee qeybo badan buu ku imaan karaa. xoolahaagii oo dayacdooda ilaalinin, iyagood meelo xunxun ku bixiso, iyagoo la gubaayo, dadka sigaarka cabaayo iyo qashinka iyo qaadka iyo waxyaabaha aan loo baahnayn ku cunaayo, kuwa kale daroogada kale iyo wixii kasii liitaba ku cunaayo. waxaasoo dhani waa xoolihii oo la dayac, iyagoo meel xun la dhigay oon la ilaalinaynin, oo maaragtay xoolihii marka idaacat almaal intuba way soo wada gelayaan. ayib, waa wada mamnuuc intaasoo dhan, 9 shay wey, waa wada xaaraam. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحوري رضا الله في رضا الوالدين. بوين الرالي هنشيسو كل حجران في رضا الوالدين، لبدا والد أو رالي كان نقض، لبدا والد رالي أباها يويدا رالي مكايهين، الله رالي مكايه سيداكو. وسخط الله بوين عرديسنا في سخط الوالدين، لبدا والد عرضوضة بيكون حجرتايو، لبدا والد مكو عريسيهن، الله نوكو عريسيه سبحانه. أخرجه الترمذي صاحب ابن حبان والحاكم، وهذه الشيخ الألباني سبع الجامع أي كسحظ. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحي والذي نفسي بيده، وعن قدرت المعبود كالنفتين وقعنتي سكجرته، لا يؤمن عبد أدون مجر على الرماية حتى يحب لجاره إلى أدرس كيس اللجع ما يحب لنفسه، وحن نفتي سأولج عليه أدرس كيس اللجع. مركا قفك إيمان كيس رما يسترمي ماي أو مؤمن ربعا من قناي إلى وحن نفتي سأولج عليه الجار كاغا درس كاغا رجع بعض إيمان بعد رجع شاي la jeclo ixsaan iyo wanaagkaad la jeceshahay la jeclo dadkaad wax isu tiiniyo dadka jaarka kula ahaba khayrka adigu aad haysata iyagana la jeclo. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحيد سألت وحن ويدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم، الذنب اللي سمايا محاول، أي الذنب أعظم، الذنب اللي سمايا محاول. قال وحيد أن تجعل إنا ذي يشر لله بوينه ندا إن أضيش، أن تجعل لله ندا إن بوينه أسميسون ندا ند والشرك عبادة مد لو ذاك سد إن أسميسون جرب درس وهو خلقك سوى الله وكأبوه. قلت وحالي ثم أي محاكحك؟ قال ثم أي مركان محاكحك؟ قال ثم أن تقتل إن تشو ولدك المهاجة خشية أن يأكل معك، إنه كلعنا يعني إنه نولاضه وانت حاجات كسيديو حاجات وحويه درتد الأدشو تاسا ينكمل. ثم أي محاكحيان؟ قال وحوري أن تزاني إن تكزنيستو بحليلة جارك درس كاغا مدي حاسكي ساعد أما حليلة ديس أما ولاشي أما أبو يدي أما يعني قفك الدرس كقوة wuxuu kuu leeyahay xaq gaar kuu leeyahay. dariska waa kala marka dembi u fiirso adoo dembi galaya baa haddana waxaa kala duwan dembi aad ka gashay ruuxa junuubtu kala weynta maxaarimta oo kale, hadda dadka qaraabadaada iyo maxaarimtaada iyo ruux dadkaaga qoyskaaga aad inaad xumaan ku samayso la gasho
waa dembi gaar. jaarkaaga iyo dariskaaga iyo dadka kula degan iyo kuwa lagugu aaminay adiga lagaaga tegay iyo ninbaa safray oo aduu reerka kaaga tegay mas-uul kaaga sii dhigay reerkiisii baad xumaan ula sii dabamaraysa. way ka weyn tahay dembiga dadka kale ee bannaanka ka. marka taasaa la yidhaahdaa xaliilata jaarika, waa dadka dariskaaga. muttafaqun caleyh, buhaariyo muslim. wacan cabdillahi bni camr bn alcaas radia allahu canh ana rasuula اllahi sala اllah alay slam qaala wuxuu yihi min alkabaa'iri kabaa'irta waaweyn, dunuubta waaweyn ee kabaa'irta waxaa ka mid a shatmu rajuli ninka caydiisa waalidayhi labadiisa waalid oo caayo. dunuubta waaweyn waxaa ka mid a shatmu rajuli ninka caydiisa uu caayayo waalidayhi labadiisa waalid uu caayayo. qiila waxaa la yidhi oo wahal yasubu rajulu waalidayhi, hal yasubu miyuu caayaa alrajulu qofku waaliday sidee buu nin labadiisa hooyadii aabbihi u caayayaa? qaala wuxuuhi nacam haa wuu caayaayo yasubu wuxuu caayi abarajuli nin kale buu aabbihii caayi fayasubu abaahu markaasuu ninkaasina isaga aabbihii caayi. wayasubu ummahu nin kaluu hooyadii caayi fayasubu ummahu kii kalena hooyadii ayuu caayi. muttafaqun caleyh. idan hooyada iyo aabbaha in la caayo adaa sabab uga noqday, adiga ayaa sabab uga noqday. maada adugu afka ku caayin, laakiin adigaa sabab. nin kalaad cayday madartadkaada markii waxaas nacallaa waxaa ku yaalo, nacallaa aabbaha ku yaal, nacallaa adigana nacallaa aabbaha ku yaaliy hooyada. marka waa laguu soo celinaya. waa adigaa marka yaa keenay lacnadan yaa aabbihi hooya u keenay, caydan iyo flagadadan yaa u keenay, adaa u keenay. waxaa lamida baa la yidhahdaa iyadoo nafteedu soo geli dadka xunxun ee dhaqanka xun ee fisqiga badan. meelaha hadda markaad wax khariban ku aragtay iyo ruuxan haduu qofku leeha waxay dhale ee walba saas iyo saasa qofkaasaa la gaari waad aragtay. marka ruuxii xun markii la arko wixii dhalayna waa la gaari. haddaad ilmo yaroo hadda idab daran aragto oo akhlaaq xunaato ruuxan wixii dhalay maxay ahaayeen iyo dad kana iyagii baad gaadhaysaa. marka weli sababtii unbaa lagu jiraa baa la yidhi oo waa un sababtii adaa u sababoobay in aabbaha iyo hooyada la cayaad weli sababoon. ayb muttafaqun caleyh. wacan abi ayuubin radia allahu canhu abi ayuub alansaari ana rasuula allahi sala alla ly slam qaala wuxuu yihi laa yaxilu limuslimin qof muslima xalaal uma ah an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalka inuu ka tago fowqa 3 layaalin 3 habeen wax ka badan yaltaqiyaani ay kulmayaan fa yucridu haada midkani uu ka jeedsan wa yucridu haada kanna uu ka jeedsan wa khayruhumaa labadooda kan khayrka badan alladii waa midka yabda-u bisalaam salaamta ku bilaaba. muttafaqun caleyh, bukhaari iyo muslim. labadan qofna waxaa weeye sideedaba dadka aadaab ilan kitaabul aadaab baynu guud ahaan waxaynu kitaabka uga jirnay. waxaa labadan qof loo siiyey xad hadday wax isu qabaan 3 beri waa muddo lagu cadho celiyo oo qofka karkiisu ku dago oo dhiiggiisii kara uu ku soo laabto oo qofku uu caadi ku noqdo. waa 3 beri baa jaaniska sharcigu u siiyey. ama wax intaa ka badan lama ogola labada ruux inay yuli sii kala aamusnaadaan. haddii ay midkood ku bilaabana waa midka khayrka badan labadooda. hadduu ka kale ka diiday inuu u jawaabo iyo inuu salaanta ka radiyana ismigii iyo dembigii kaasaa roganayo cishana. laakiin kan bilaabay baa mar walba khayr badan. wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam kullu macruufin sadaqa. rasuulku wuxuu yihi wax kasta oo macruufku wuu badanya tiro badan ilaa aada walaalkaa weji furfuran kula kulanto waa sadaqa layidhi soo maa. kelima tayiba waa sadaqa. qofka ood u kaalmayso ood alaabtii u saarta baabuurkiisa iyo gaadiidkiisa waa sadaqa. adigoo wax siiya waa sadaqa. marka acmaashu way badan tahay. kullu macruuf baa la isku wada jamciyey. wax walba oo wanaag oo macruufi sadaqatun. akhrajahu lbukhaariyu wacan abi darin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llah sal ly slam rasuulku wuxuu yihi laa taxqiranna min almacruufi shay-a. laa taxqiranna ha xaqirin ha yaraysanin
min almacruufi waxyaabaha macruufka ee wanaagsan shay-an waxba ha ka yaraysanin walow an talqaa inaad la kulantaba allah ka yeelo akhaaka walaalkaa biwajhin talqin weji furfuran oo farxad laba xitaa walaalka aada kula kulantide ha yaraysanin waa sadaq alwajhu talq wejigaa furfuran ee qoslayaay sadaqa wey rawaahu muslim wacanhu waxaa laga wari radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu yihi idaa dabakta markaad karinayso maraqatan maraqa waa raashin weliba hilibkii haddaad karinayso fa akhir maa-aha biyaha badi watacaahad jiiraanaka dariskaagana ka warqab ogow dadku waagii hore dee waxbaa inta badan laysisiin jiray oo hadda waxbaa dadkii ummadaha dee gaar ahaan wadamada inagu ku nool lahay umaba sii jiraanoo dee nin walba isaga wixiisiibuu iska helayaayo farajeerkiisa halgayaan isaga buuxee laakiin dadka laga hadlay waa dad rafaadsan oo dadkeennii afrika joogay ee iska baahnaa ayaa laga hadlay kasoo qaad adiga oo meel baahan oo reerkii ay gurigan kugu xigi iyo aan dab laga shidin kan kale aan laga shidin kan aan laga shidin ummadii wada baahanta waxoogaa baad karsanaysaa haddaadbad waxoogaa hilib oo kale aada karinayso biyaha iyo maraqa u badi biyo badan ku shub kadib xitaa maraqa wax ka gaadhsii maraqu waa cunto marka ka gaadhsii dhowaan reerka haddaad waxoogaa u geyso xitaa ama hilibkaasaad waxoogaa uga daraysaad ka siinaysaa almuhim dariskaaga ka warqabo wax gaadhsii weeye wax baxso qof walbo waan abi hurayrata radi allahu canh qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu yihi man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi اddunyaa nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama man nafasa ruuxa fayda can mu'minin qof mu'mina kurbatan kurba ka fayda oo min kurabi اddunyaa adduunyada kurbooyinkeeda ka mida nafasa allahu canhu eebbaweynaha ka faydo kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama kurbada kurbooyinka qiyaamada ka mida baa alla isagana ka faydayaa ayib waman yasara can mucsirin qof mucsir oo cayr oon waxba haysanin ruuxii hodan ka dhigoo wax siiya yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira ilaahay adduun iyo aakhiraba isagana hodan ha ka dhigo waxa siiyo waman satara muslima qof muslima ruuxa astura satarahu allahu fi dunya waalaakhira qof muslima adduunka haddaad ku asturto ilaahay adigana adduuniya aakhira buu ku asturaya wallahu fii cawni alcabd ilaahay addoonka wuu u kaalmeeyaa maa kaana alcabdu fii cawni akhiih intiiba addoonku uusa walaalka u kaalmaynayo ilaahay baa adigana kuu kaalmayn intiiba addoonku qofka kale ugu kaalmayn ummadda kale aada caawinayso adigana allah kuu kaalmaynayo akhrajahu muslim ayaa soo saaray wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llah sal l sl rasuulku wuxuu yihi man dalla calaa khayrin qofkii khayr dadka tusiya falahu midlu ajri faacilihi wuxuu leeyahay qofkaasina qofkii ajirkaa sameeyey in la eg buu yeelanayaa man dalla calaa khayr haddaad adugu dadka khayrka tusiso ood waxa fiican u sheegto waxaad yeelan falahu midlu ajri faacilihi qofkii sameeya ajirkaa sameeyey intii uu helay in la eg ayaad yeelanaysaa waxyaabaha hadda khayrka iyo fidintooda dalla qofka tusiyo waxaa kamid a waxyaabahan aalooyinkan hadda casharada aanu ku aqrinayno oo facebooka iyo waxyaabaha dadku wixii fiican haddaad sheer garayso ood ummadda usii dhiibto ood sii gudbiso in alla intaad gaadhsiisay ajirka ay heleen qof walba intuu helay in la eg baad adna sii helaysaa iyagoon iyagana laga nusqaaminaynin adigana lagaa nusqaaminaynin wakadalika sharta iyo xumaanta haddaad sheergarayso ood sii gudbiso inta xumaantaa dembigeedu yahay oo qof walba ay gaadho baad adiguna dembigeeda in la eg yeelanaysaa marka khayrka la fidiyaa ummadda la gaadhsiiya wacan ibni cumara radi allahu canhuma can inabiyi sala allah alay slam qaala rasuulku wuxuu yihi man istacaadakum billaah qofkii allah idinka magan gala faaciiduuhu magan geliyo waman sa'alakum billaahi faatuuhu qofkii ilaahay dartii wax kuu weydiistana wax siiya waman ataa ilaykum macruufan ruuxii wax fiican idiin sameeyana fakaafi-uuhu
gudo idina wax fiican u sameeya fain lam tajiduu haddaydan helin waxaad adigu ugu badashana fadcuu lahu u duceey akhrajahu lbayhaqiyu sheekh albani saxiixuljaamic buu ku saxiixiyey man istacaadakum billaahi faaciiduu qofbaa wuxuu ku yihi ilaahay baan kaa magan gala ilaahay hadduu qofku yihahdo baan kaa magan galo faraha ka qaado iska daa dii ninku aad gabadha intaad xaas guursato oo kale ay gabadhu markaad u timaado saaga maaragtay laga yaabo inaad tiraahdo dee ama qofkii taaba ama ay usoo dhawow ay ku tiraahdo ilaahay baan kaa magan gala acuudu billaahi mink ilaahay baan kaa magan gala ama carabi aa ku tiraahdo ama soomaali waxay rabtaa dhahdee ilaahay baan kaa magan gala hadday tiraahdo magan geli faraha ka qaad rasuulku sala allahu calay wasalam gabar uu guursaday ayaa markuu usoo dhowaaday ayaa waxay ku tiri waxaan kaa magan galay acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan gala markaasaa wuxuu uri laqad cudti bimucaadin alleelaha waxaad magan gashay mid weyn oo la magan galo ayaad magan gashay mid la magan galaad magan gashay qaado dharkaaga oo iska maaragtay waan ku magan geliyay faraha faruhu ka qaada rasuulku sala alla alay wasalam haweeneydaasoo waagii dambe waxaa la yihi ka qowmaman jirta markaa horena dad uun shayaadiin ah wax kalaa ku diray waxaa lagu yidhi haddaad rasuulka ku tiraahdo ilaahay baan kaa magan galay uu ku dayn taaban maayo marka tiiba iyaduna adeegsatay oo marka dad uun rabay inay dhaafiyaan meeshaan oo ay booskan dhaafiyaan oo aynan fadligan iyo wanaaggan iyo khayrkan garab marto baa garab mariyey iyadiina waagii dambe iyadoo weynaa ay ka qoomamayn jirtaa layihi marka marka qofka hadduu ilaahay kugu magan galo u yihahdo ilaahay baan kaa magan galay magan geli adugu wax weyn buu qabsada waman sa'alakum billaahi factuu hadduu ilaahay wax kuu weydiisto ilaahay baan kugu dhaariya waxsi allah kugu dhaariya hadduu kugu qabsado iyadana wixii aad helaysa khayr ayib qofka khayr kuu sameeyana isagana fakaafu idinna khayr u sameeya wax u dhigma siiya inaa rasuulka markii hadda wax loo soo hadiyeeyo sala allahu alay slam isaguna waxbuu qofka u celin jiray uu hadiyeyn jiray marka haddaadan haynin waxba aad adigu hadiyeyso ee u ducee qofka u ducee ayib azuhd walwarac zuhdiga waxaa la yidhaahdaa qofku inuu zaahid adduunka dhexdiisa adduunka oon la jeclaanin oo qalbiga adduunyada aan laga jeclaanin walwaracna waa xalaal miirasho inuu qofku noqdo xalaal miirad baa la yidhaahdaayo waxaad og tahay inuu xalaal yahay unbaad isticmaali wixii shuuba ku jirtana waad iska day wacan nucmaan ibni bashiirin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala alla alay slam yaquulu rasuulka ayaa waxaan mara isagoo dhahaya waahwa nucmaanu biisbicayhi ilaa udunayhi nucmaan markuu warinayay xadiidkan ahwaa wuxuu ishaaray annucmaanu biisbicayhi labadiisa gacmood ayuu ilaa udunayhi dhagahaas labadaydan dhagood baan ku maqlay sidaas dhagaha saa u saaray faraha yaa wuxuu yihi labadaydan dhagood rasuulka sal ll slam oo khudbayn baa markii hore sidaa yidhi marka isaguna sidii oo kale ayuu ishaaray rasuulkaa waxaan ka maqlay isagoo dhahayo dhagahaygan ku maqlay ina alxalaala bayinun xalaashu way caddahay wa ina alxaaraama bayinun xaaraamtuna way caddahay wa baynahumaa mushtabihaatun xalaal iyo xaaraam waxaa u dhaxeeya waxyaaba mushtabihaad oo dheeh galay oon iyagu caddayn laa yaclamuhunna kahiiru min annaas in badan oo dadkii ma taqaano waxaa xukunkiisa garan maayaan laakiin dadka qaar baa garan dadka ahlucilmiga iyo ahlu ikhtisaaska ah way yaqaanaane shareecada bartay ayib laakiin inta badan dadku garan maayaan xukunkan xalaal baa mise waa xaaraan faman ittaqa haddaba waxaa lagu siiyey qaacido guud ood adigu ku socon karto faman ittaqa ruuxa iska ilaaliya ashubuhaati waxyaabaha aan caddayn faqad istabra'a qofkaasi waa baryeelay lidiinihi diintiisa iyo wa cirdihi sharaftiisu ilaashada waman waqaca ruuxa ku dhaca fi shubuhaati waxyaabaha shubuhaadka ah waqaca wuxuu ku dhacay fi lxaraami xaaraamta ku dhacaya karaaci
sidii qofkii xoolo jirka ahaayo yarcaa ku raacaya xoolaha xawla alximaa seeraha korkooda ku raacaya yuushiku waxaa dhow an yaqaca fiihi inay xoolahaasi beerta daaqaan oy gudaha u galaan ayaa suuragal. ninku hadduu yidhaahdo meesha seeraha waxaa la yidhahda beerta markii la oodo ayaa korkeeda lasoo oodaa, haddana waxoogaa korkeeda lasoo oodo. marka meesha beerta korkeeda weli aan la qodin oo laakiin soo oodan waxay leedahay oo doog badan oo fiican bay leedahay, halkaas waa meel doog leh. ninkii rabaa inuu xoolaha dooggaa daajiyo beertii ka mid maa, laakiin weli waa beerta xayndaabkeeda oo u dhow. qofkii raba marka inuu halkaa daajiyo xoolahaasi markay daaqan cunaan gudaha unbay u gelayaan, beerta unbay usii soconayaan. waa sida alaa hooyaay wa inna likulli malikin himan, war boqor waliba seeruu leeyahay iyo meel lama taabtaan. alaa wa inna xima allaahi maxaarim, eebbaweyne seerihiisu meesha lama galaankii waa maxaarimta waxyaabihiisa uu xaaraamta ka dhigay, taasu lama galo. alaa hooyaay wa inna fi ljasadi mudlah, jirka qofka bini aadamka ah xubin baa ku jira. idaa salaxat hadday xubinkaasi fiicnaado salaxa aljasadu kullu, jirka oo dhan wuu fiicnaan. wa idaa fasadat hadday xubinkaasi hallaabana fasada aljasadu kullu, jirka oo dhan wuu hallaabi. alaa wahiya alqalbu, xubinkaasna waa qalbigee ogaada wey. haddii qalbigu qofku acdaa iyo xubnuu leh 360 xubnood baan leenahay. 360 kaa xubnood haddii halka xubin ee qalbigu uu hallaabo inta kale oo dhanna way hallaabayaan. hadduu hagaaganaa inta kalena waa walidaalika yaa rasuulka sal ll ly slam ducooyinkiisa ugu badan allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinika buu odhan jiray. kula fiirso, waa xubinkaasa uu dadaalaya. allahuma yaa muqaliba alquluub, allah quluubta gedgediyow, habit qalbii calaa diinika, ilaahu qalbiga diintaada ku sug buu odhan jiray. وعن أبي هريرة البخاري ومسلم بالصوصار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كبر تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. تعس وحا هلاك سمي وهوغي إن كان كل عضي عبد الدينار أدونك قفك وقع دينار لعقت دولار كهذا به دولار بان شقيين ووطنك لغا شقياه cabdu dinaari cabdu adoolar, nin doolarka iyo lacagta uun adoon u ah, iyo wadirhami, dirhamkaas waa fidadii iyaduna lacagta qeybteeda kale, iyo walqatiifati marada gogosha iyo wixii lamid iyo dharka quruxda badan iyo dadkaas u ah. waa sidee in uctiya radiya, haddii xoolaha la siiyo raalli buu noqon. wa in lam yucta haddaan la saydinna lam yarda raalli noqon ma, uu ku lacnadaya. dad badan siday ku dhaqmaan bini aadamka ummadeena qaar badan ba sidaas sifadaa iskale. qof waxaad arkaysaa wadaad oo diinta yaqaan oo kan oo fulaan, haddana addoon u ah adduunyadaas, oo haddii la siiyana raalli buu noqon, haddaan la siinina baalon wuu ku goynayaa, wuu ku dilayaa, wuu ku caayayaa, wuu ku aflagaadaynayaa. waa mashaakil. marka sidaas أخرجه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، رسولك وحوقبت منكبي، منكب هو قرب، هل كاسا الليلة هذا ماشي قرب كان وصائمت إيه قبتي. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. ابن عمر كن نقه في الدنيا أدونك كأنك غريب، sidii adigoo qariib meelan lagaa garanayn inaad joogto oo kale. dhulkaagi ma, meeshaan meel lagu daahaya ma, meel la joogaya ma, waa laga socdaa. 4 qof baad ummadda ka taqaanaaye, waxba qariib baaba iskaga tahay. ayib, ama aw caabiru sabiilin, sidii qof jid goynaya oo kale ku noqo. marka taasna waxaa weeye hami weyn oo adduunyo iyo yididiilo dheer oo adduunyo hasiil ahaan. walidaalika ayuu xitaa imaamu nawowi raximah llahu sharaxa xadiiskan wuxuu yidhaahdaa labadan shay ee hadda la tilmaamay, miithaalka laynoo soo qaaday
kun fi dunyaa kaannaka gariib. qofku hadduu gariib yahay weligu xogaa buu ku fikiri karaa. tusaale haddaan ka soo qaadno magaaladan hadda caawa haddaad timaado Seattle Washington baad caawa timid, waxaa laga yaabaa inaad isla caawa magaalada ka hesho dadka jooga u bogto, maasha allah meel fiican kula noqoto, weedarkeeda iyo dadka jooga iyo nolosheeda iyo masaajidkeeda iyo wax walba markaad fiirfiiriso, isla markaana ku fikirtaba inaad degtaba ood reer ku yeelato ood gabadh ka guursato oo adiga dhan magaalada iska degto. waa suurakeed qofka qariibkii marka inuu meesha la qabsado. taas marka xadiidka la yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariib, gariibku weli waxba ku fikiri karaa soo maa, waxaa laga daba keenay oo caabiru sabiil, jidka qofka goynaya. ayib jidkan haywayga albaabka masaajidkeenna mara oo baabuurtu marayso, jidkaa qof markaad hadda goynayso maxaad ku fikirtaa? labada dhinac unbaad iska fiirisaa soo maa, qof walow xaggaad fiirin horaad ku gudubta. miyay kugu soo dhacdaa marna niyadaada ma ku soo dhacda inaad jidka dhexdiisa istaagto ood wax ka dhigato, guri ka dhisato, ku daahdo, iska fadhiisato, kusoo dhici kartaa? ma haddaba adduunyadu sidaasoo kale buu rasuul ku miaaliyey sala allahu alay wasalam. wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yaquulu ki yidhaah idaa amsayta falaa tantadir الصabaax waidaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa. idaa amsayta markaad galabaysato oo galabtii la gaadho, falaa tantadir الصabaax waa beri ha sugin, waidaa asbaxta markii waagu kuu baryana falaa tantadir ilmasaa galab ha sugin. wakhud qaado min sixatika caafimaadkaaga lisaqamika markaad jiranta, markaad caafimaadsan tahay acmaasha samayso oo shaqayso. markaad jiran tahay baa laguu qorayaa waxaad samayn jirta markaad fiicnayd. wa min xayaatika noloshaadana shaqayso u qaado limowtika markaad dhimato. beri waad dhimanoo camalkaaga ma sii soconayee intaad joogto shaqayso si fiican u shaqayso. أخرجه البخاري. وعن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulku wuxuu uhi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum. qofkii dad isku shabahay iyaguu ka mid yahay. akhrajahu abu daawuud saaq ibnu xibbaan, sheekh albani sabrjaamic ku saxiixi. man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum, ninkii dad isku shabaha, dadkaas waxay rabaan ha noqdo. haddaad dadka culimada isku shabahdo oo ahludiinka isku shabahdo ood isu ekaysiiso ood ku dayato ood jeclaato, in sha allahu tuxsharu macahu, waxaa lagu keeni doonaa qiyaamada macooda insha allah iyaga ka mid. haddaad kuwa xunxunkaa ku dayato ood maaragtay qaabdaradooda ku dayato, kuwa aad aragtay hadda surwaalka dabada ka tuuraaye kasii dhacay, hadda adiguna tirada kuwaasaan ku daran, iyaga unbaa lagula soo xashirinaya. kuwa maaragtay qadaadka xiiranay, kuwa maaragtay akhlaaqiyaadka xunxun, kuwa aad ku dayato unbaad adiguna la mid tahay ogow. ayib. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa khalfa الnabiyi salى الlaه alay slam yowman, maalin baa rasuulka gadaashiisa joogay. faqaala wuxuu yihi yaa gulaamu wiilow, ixfid illaha ilaahay xifdi, yaxfadka wuu ku xifdinayaa. ixfid illaha ee bixifdi tajidu tujaaka, hortaadaad ka heli oo umuurtaada dhan buu kuu qaban. waidaa sa'alta fas'al illah, haddaad wax weydiisana alla weydiiso. waidaa istacanta fastacin biاllah, haddaad kaalmo rabtana ilaahay kaalmo weydiiso. rawaahu tirmidi waqaala xasan xuseen. waa tarbiya fiican iyo akhlaaq fiican oo qofka dhallinyarta alla barayo lagu barbaarinayo. alla qofka xifdiya ilaahay baa xifdiya, allaad xifdiday. xumaan baad iska ilaalisay, indhahagaad ka ilaalisay, afkaagaad ka ilaalisay, gacantaadaad ka ilaalisay, carabkaagaad ka ilaalisay, calooshaadaad ka ilaalisay. waad xifdiday wixii lagu diray. ilaahay baad asmaahiisa iyo sifaadkiisa iyo maaragtay rabbi baad weynaysay. allaad xifdiday, adna wuu ku xifdin. hortaadaad ka heli waxaa weye wax walba isagoo kuu qaban baad heli. haddaad wax weydiisana isaga weydiiso, haddaad maaragtay kaalmo rabtana asaga weydiiso, wuu ku siin insha allah. wacan sahli bni sacdin radi allahu canhu qaala jaa rajulun ila nabiy, nin baa rasuulka u yimid sala alla alay slam. faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah, rasuulka eebow dullanii itusi calaa camalin camal oo idaa camiltuhu markaan sameeyo axabanii allahu ilaahay i jeclaan, wa axabanii annaasu dadkuna i jeclaan. waa arrin fiican sooma, arrin markaan sameeyo allana i jeclaanaya dadkuna i jeclaanayaan ii sheeg. faqaala wuxuu uhi izhad fi dunyaa
adduunka dhexdiisa ku zaahid yuxibuka allah ilaahay baa ku jeclaan washad fii maa cinda annaas dadka waxa ay haystaanna ka zaahid yuxibuka annaasu dadka ku jecel maxaa laga wadaa izhad fi dunya yuxibuka allah adduunyada dhexdeeda ku zaahid adduunyada ka zaahid oo lama odhan ka tag maaha macnaheedu adduunkan in loo walaa tansa nasiibaka min addunya shaqayso wax qabso dadka baryin gacnaha hoos dhiganin waxa weye qofku inuu wax qabsado uu shaqaysto oo wax fiican marka adduunka laakiin ku zaahido waxa weeye adoo saa u shaqaysan haddana jacayl qalbi intuu qaydniyad adduunku qalbiga kaa galo ha uga tegin khayrkiiyo wax walba meeqa qof baad aragtay masaajidda waaweyna la dhifay aan salaadahooda dee soo xaadiraynin halkaa maraya albaabka iyagoo salaadii la aadaamayo oo la aqimayo halkaa caydhsanaya baabuurkii iyo tagsigii halkaa lasii ordaya meeqaad aragtay oo maaragtay khayrka aanu istaagayni marka yayna ku dhaafini adduunyadu khayrka yayna ku dhaafini marka taas waa midda labaad allah marka ku jeclaan haddaad sidaa noqoto ilaahay baa ku jeclaan dadka soo ma aha waxa dadku haystaan indhaha u taagin oo gacmaha hoos dhiganin oo su-aasha ha ku badsanin oo iskaga tag iyagaa ilaahay baa ku siinaya adduunyadu qofkii ka carara way kusoo carartaa qofkii laakiin daba orda way kasii cararaysaa xadiis kale ayib waana xadiis saxiix وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كان مولاه إن الله يحب العبد إلهي يجعل يا أدونك التقية يا الله كبقى الغنية يا غنية غنى النفس بالإلى ذاي الخفية إسك قرصون أخرجه مسلم إلهي أدونك ويجعل إن الله يحب العبد التقي يجعلها قف تقية والله كبقى الغني وغني ومارتي ضدك مارت كدرتون وغنى النفس إلى هيسي الخفي وقرصون اسك قرصون هذا حاجة الآن ضدك جرانين ضدك سيد رسولك يقول من لو أقسم على الله لأبره ضدك كارو حكجرة هذا الله كبارتان إلهي أبارنا مصر لكن ضدك أنا وحكي جرانين مسكين إلهي ملا اسكفر اليوم waxba aan la ahayn dadka oo ayna sidaa warkiisa u dhagaysanaynin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maqla dhagaysanay hadduu yidhahdo hataa wallaahi inuusa waxaasi dhacaya wixii waa loo samay ilaahay baa u samay wallaahi una waxaanay dhacaynin inuusa wixii ilaahay wuu dhicma uu ka oofinaya nin baa jiray saxaabta ka mid ahaayo gabadh walaashii ah baa gabar kale ilig ka jebisay ilkahay ka soo riday marka gabadhii baa wuxuu rasuulka loo keenay qisaas wuxuu rasuulku hala qisaaso waa in iyadana ilkaa laga soo tuuro markaasuu walaalkeed baa wuxuu yidhi ma gabadhayda walaashay faatima la odhan jiray faatima laga soo tuurayaa ilkaa wallaahi baa laga riday ilaahay amarkii qoladii markii hore intaan ninkani dhaaranin baa waxaa lagu yihi warnimayo diyo iska qaata oo xoolo qaata oo mag ha laydin siiyo oo gabadha iska daaya way diideen iyaguna waxay yidhahdeen ilaa weliba gabadha ilkaana laga daadiyo ninkaani markii la gabadhi waa laga daadiy wuxuu uhi wallaahi baan walaasha ilkaha laga riday waa nin saxaabi ilaahay amarkii dadka qaar baa mooday marka ninkani dee nin diintiiba diiday oo rasuulka amarkii sii diiday inuu yahay laakiin maxaa dhacay markuu dhaartay unbay qoladii yimaadeen oo waxay yidhahdeen war hanala siiyo xoolo ma rabna gabadha ilkaheeda rasuulkaa marka wuxuu yidhi sal alla alay salam dadka waxaa ku jira qaar iska qarsoon oo man low aqsama cala allaahi laa barahu hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay baariba u samayn oo loo fulinayaa arrinkooda marka sidaas وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يقول من حسن اسلام المرء قفك اسلام نمديس وناكيدا وحا كمدا تركه ما لا يعنيه انه كتب وحا عن مهم كواهن ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء قفك إسلام نمديس وناكيدا وحا كمدا تركه ما لا يعنيه وحيابها ما لا يعني وان سوى حبا أترينين وها ما أنت وحا كمدا وحا سوشيال ميديا tirada badan oo caawo dhan laga yaabo inuu qofku saacado tiro badan facebooka iyo youtube iyo fulaan iyo fulaan iyo fulaan intaasoo socdo
waxba aan lagu bixinayn, waxbana aan laga akhrisanin, waxbana aan lagu fidinayn, wax fiicanna aan lagu sheegayn, waa malaayacni bay ka mid tahay waxyaabaha noocaas. waxaa ka mid a hadalka malaayacni, dadka iska fadhiya meelaha shaxa iyo goobaha la fadhfadhiyay maanta o dhan halkaas ka darooriyamaye qashinkaadha maarata gaxwooyinka fadhiya baa ka mid. marka almuhim waxaa weeye wax aan qofka manaafacaad u lahayn. rasuulku cumar bin alkhadaab baa wuxuu odhan jiray waxaan nacayaa inaan qofka ku arko, waan malay subhalan baa kelimad noocaas oo kale ah. waa maxay? laa fii camali dunyaa walaa fii camali alaakhira, yani qofka inaan ku arko camal adduunyana ma hayo, camal aakharana ma hayo. wax fiican ma adduunyada shaqayso, xitaa wax qabso, wax baro, shaqayso, kasoo adigoon hilmaamayna wanaaggaagii iyo diintaadii iyo khayrkaagii kale, aakharo u shaqayso. laakiin aad meel iska fadhido oo qofku waxba uusan qabanin waxyaaba. وعن المقدام ابن معدي يكرب رضي حديث كهرباء وحديث الشيخ الألباني سوى الجامع وكسته. المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قول ما ملأ ابن آدم مبوحن وعاء ويل أو شرا كشر بضن من بطن علول. wax calool ka shar badan oo la buuxiyey ma jiro. shar oo dhan calooshaas ka timaada, jira hadday timaado caloosha ka timaada, oo cuntada tirada badan oo la cunayo. haddii qooq iyo edeb darra ay jirtana caloosha ka timaada. nin baahan oo gaajo la sakaraada muxuu samaynayaa? waa weye. laakiin ninka markuu dhergo ayuu xumaantii kalena ku fikir, zine iyo qashin iyo howlo kale. marka qofka bini aadamka sidiisaba qofku markuu dhergo ayuu edeb darra kalena sameeya, uma dallaayaayo, ku kibraayo, wax wal. maa malaa ibnu aadama wacaaan sharan min batn akhrajahu tirmidi وحسن الشيخ الألباني سعيد الجامع أي كسقي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء. كل بني آدم كدن وخطاء ويكفان وخير الخطائين التوابون. تتكجفكوا وخير قلنا وقوة صوتوبت كنا. خير الخطائين التوابون وقوة صوتوبت كنا. خرجه الترمذي وابن ماجه سنده قوي سوى الجامع وشيخ الألباني كسر. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوي الصمت حكمة أمسد وحكمته وقليل فاعله انت السميسان ويريه تضير أيام أمس كربة تذكر انت بدل والضروري مي وحن ما انت دركت السوشيال ميديا قاطع اسكت عين هي تمر wada haya soo wada haytay ummadaas oo dhan. yacni waxaa weeyaan waxay sheegayaan ka fiirsan maayaan, laakiin waxaa habboon in ruux ogaado waxa aad dhahaysoo dhan waa la qorayaa. waxaan tirada badan ee adigu aad aqrinayso ee dadka aad ku soo jiidanayso been miyaa mise rum way aadan kala fiirinaynin. waxaasoo dhan haddii laguu qorayo kaba 3 saacadood ama 4 saacadood markuu qofku Facebook live uu ku jiro مثلا tusaale 3 saacadood baad live-ta 4 saacadood baad live-ta intaa waad fadhidaa waad daruuriyamaysaa. طيب intaa ka waran wixii haddii la qoro maalin walba waa lagu qoray meel baa lagu dhigay. khayrna aadan ku hadlayna, shar aad ku hadlayso, xumaan ummad aad caayayso, kuwo kalood kala dilayso, kuwo kale. marka waa mashaakil baa qofkaas maartay. الصمت حكمة يعني أمسك وذهب ليل هذا. لذلك تذكي ورا وحرين كان سلفك شيء مركز أكتا إنه خير يكفكر كلمة أنت هذا هذلين ولا ورت كفكر مركز أوجاتو إن خير تكو هذا ذكر نسكت. الصمت حكمة وحكمة وقليل فاعله قفك السماينة وبيريا أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، لكن حديث كان ضعيف. صحيح معنى هو معنى في عنه حكمة لكن حديثه صحيح. باب الترهيب من مساوي الأخلاق. هل كان وحال اسكع عيرين يا ولا اسكع كحين يا أخلاق الحن انت تكالله الشيء سيوبت بالا إن شاء الله مركز وجوجدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.